kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad caalamka nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan shabakada caalamiga ee Haruna News oo barnaamijka ay ka diyaarisay shir ka furmay deegaanka Agabar oo ay yeelanayaan beesha degta galbeedka iyo waqooyiga magaalada Hargeysa. Shirkan oo muddo qabanqaabadiisa socotay ayaa waxa uu si rasmi ah u bilowday 18 bisha. Waxa ka soo qayb galay suldaano iyo cuqaal iyo dadweyne aad u tiro badan oo ka soo jeeda deegaanka Agabar. Munaasabadii furitaankaasi ayaa waxaa lagu duceeyay neef geel ah iyadoo halkaasi lagu bireeyay. Intaasi kadib waxaa si rasmi ah u furmay shirkaasi ay yeelanayso beesha degta galbeedka iyo waqooyiga magaalada Hargeysa. Haddaba barnaamijkaasi aan ka soo diyaarinay daawadayaal waxa uu dhacay sida tan ee daawasho wacan. Salaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waxaan halkan ku soo dhaweynayaa anigoo ah gudoomiyihii guddiga qabanqaabada salaadiinta iyo boqorada iyo cuqaasha iyo beesha degmada Agabar oo si wanaagsan oo mug looga qayb qaadatay si wanaagsan ay soo xil saartay hawsha inta u badan qabatay mahad baan u soo jeedinayaa waxaan salaamayaa salaadiinta iyo cuqaasha iyo guddida iyo qurba jooga iyo marti sharafta ayaha qiimaha badan leh waxaan leeyahay shirki waa inoo furay waxa furi doona salaadiinta anigu haddaan ahay gudoomiyihii qabanqaabada halkii loo baahnaa waan soo gaarsiiyay wixii alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh ilaaha nicmooyinka faraha badan leh ee aynaan tirin karaynina siiyey allahaasaa mahad leh waxaynu nahay dad islaama meel kastoynu isugu nimaadno iyo gooraynu kala maqannahayba inaynu mahadnaqa alla xusno oo nicmooyinkiisa aan ku shukrino waynagu waajib ilaahayna wuu inoo sheego wuxuu yidhi kolkaad nicmadaan idin siiyaad ku shukridaan waan idiin siyaadin waxaan leenahay allahayow nicmadii waanu kaa guddoonnay badnaydeedna siisay ilaahu noo siyaadi waan leenahay intaa mahadnaqa allaan horta ka dhigaya mar labaadna waxaan mahadnaqu soo jeedinayaa beesha degmada Agabar iyo dadweynaha ka soo qayb galay shirkan Sacad Muuse ee dhaqan en siyaasad shaqo ku lahayn dadka ka soo qayb galay ilaahay baan ugu mahadnayay iyo salaamaynaa waana idinku mahadnaqaynaa walaalayaal intaana mahadnaqa aan ka dhigo inta kale ujeedada waa la sheegay maanta halkan waxa loo yimi shirkii Sacad Muuse ee muddada dheer soo socday haloosigiisa iyo qabanqaabadiisu ay soo socotay maantaan furay waaya shirkaa waxa weeye waxa lagaga tashanayaa danaha beesha Sacad Muuse danaha beesha Soomaaliland beelaha anjaarka nahay danaha islaamka waxa lagaga tashanayaa wax alla wixii loo baahan yahay in laga tashado oo wanaaga waay taas baa lagaga tashanayaa waxa ka nabadgelyada dalka ilaalinteeda iyo wada tashigeeda iyo wax ka qabadkeeda ya kowka sababtu maxay tahay rasuulkeenu wuxuu yiri salaatu alayhi wasalaam kolku ducaysanayay ya rabbi amni wal iimaan waxa weeyaan shirkaasi waa shir hoodaala ah waa shir lagaga tasanayo danta reerka Sacad Muuse lagaga tashanayo dawladda lagu taageerayo dadweynaha iyo beelaha kale injaakana lagu taageerayo wixii dantayada ay qaanuunka iyo diintuba fasaxayso inaan kaga tashano aan doonayno waxaan cidna lagu xumaynayn cidna lagu qalloocinayn cid waxa u weyn ee lagaga tashanayaana taageerada dawladda iyo nabadgelyada adkeynteeda ay tahay waxaan ugu baaqaynaa dadka Sacad Muuse bari iyo bad dibad iyo dalka gudihiisaba wixii taliya wixii arin hayaama inuu waan furaye ka soo qayb galo wixii ra'yigiisa iyo garaadkiisa iyo wanaajintiisa iyo wixiinu kala soo qayb galo iyaan ugu baaqaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh August waxa uu ku furmay khayr waxa uu ku dhamaan doonaa khayr beesha Sacad Muuse waxay kaga tashanaysaa aayaheeda cid ugu tashan mayso Soomaaliland waa ku tashanaysaa iyaguna aayahooday kaga tashanayaan sidii beelaha Soomaaliland ay ugu tashadeen gar adag iyo daalo iyo meesha la yiraahdo dubur ayuun baan anaguna u tashanaynaa haddii badan aanu xadaarada ku yar maqnay dhaqankii baan u soo noqonay beelaha Soomaaliland taana waa u sheegaynaa waxa weeyaan
in badan baanu Soomaaliland dhisaynay maantana waxaanu soo yar dhisaynaa reerkii baanu soo dhisaynaa dhaqankii iyo siyaasadina waanu yar kalmarinaa malaha hadda xadaarada nagu yar barato bariyahan dhaqankii iyo siyaasadda isaga kaaya milmay maanta laakiin dhaqankii baanu sibig tiraynaa insha Allah waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inaanu ku guuleysano cid kasta oo Sacad Muuse albaabada shirku waa u furan yihiin shirku waa shir dhaqan cid lagu cudrinayaa ma jirto walaaltinimo iyo isbeer xaadasho iyo niyad wanaag iyo wax wada qabsi iyo horumar ayaa halkan lagaga talinayaa maanta waxa weeye oonu leenahay dibad iyo gudood beelweynta Sacad Muuse waa beesha Sacad Muuse waa beelaha Soomaaliland beesha ugu ballaaran weey waa beesha ugu maalka badan waa beesha ugu dhaqaalaha badan waxaanu leenahay teeni dhaqan iyo teeni reernimo waa soo dhisaynaa cid kasta oo horumarka iyo aayaka tashiga Sacad Muuse danaynaysa waa loo baahan yahay ka soo qayb galaan shirka waa idin soo dhaweynaynaa diyaar baanu idinahay salaadiintii beesha Sacad Muuse hawlku maqan weeyna waa fadhiyaan qurba joogii waa joogaan shaahidiintii waa joogaan tijaartii waa joogaan aqoonyahankii waa joogaa waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa shirkaasi inuu noogu dhamaado guul bash iyo barwaaqo oo kii horumar laga gaadho ee ka tagooga ku jira intifaacsado ayaanu Ilaahay ka baryaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh على عشرة المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dadweynihi nan ka soo qayb galay furitaanka shirka hoodaale ee beelaha Sacad Muuse aad iyo aad ayaan idin salaamayaa waxaan salaanta koowaad siinayaa dadweynaha ku dhaqan degmadan Agabar ee nasiibka u yeelatay in shirkii beelaha Sacad Muuse ka furmaan ayaan aad u salaamayaa waxa kale oo salaamayaa salaadiinta qurba jooga uqaasha waxgaradka dadweynahan ka soo qayb galay furitaankii shirka ayaa salaamaya maanta oo taariikhdu tahay 18kii bishii 8aad 2013 waxaanu halkan aanu joogno Agabara degmada Agabara aanu ka furay shirkii hoodaale ee beelaha Sacad Muuse ay darahooga kaga shirayaan shirkaasi maantuu bilaamay saacada aynu joogno ayaanu furay shirku waa shir dhaqan maaha shir siyaasadeed waa shir dhaqan oo beelaha Sacad Muuse arrimahooga kaga tashanayaan shir cid loogu tashanaya maaha waa shir aanu ku tashanayno waxaanu dadweynaha u sheegaynaa guud iyo dibadba shirkii inuu maanta furmay qof wal oo danaynayay oo in badan sugayay shirkii maanta 18 tahay bil ayuu shirkii hoodaale degmada Agabar ka furmay وانا السلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله وتهاي barnaamijkaasi gaarka halkaasi aad kala socoteena waa shabakada caalamiga ee Xarunada News xafiiskeeda magaalada Hargeysa waa Ibraahim Qaasim oo idinka tagaya fi amaan Allah